Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ummadda Soomaaliyeed meel walba oo joogtiin, salaan ka bacdi. Waddanka wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u adag, loona baahan yahay in laga fikiro mustaqbalkiisa, aayihiisa. Shacab weynaha ku nool waddankaas gudihiisa waxaan la rajaynayaa in loo turi doono. Ninka u turi doono kolley shacabka wax ma doortee kolley waxaa laga rabaa dadka lasoo dooran doono baarlamaanka imaan doonaana laga rabaa inay shacabkooda u turaan, ay ay doortaan qofkii ay u arkaan in waddankani uu maslaxa u yahay, kheer u yahay. Dabcan madax badan ayaa waddankaasi isku soo bedeshay waqtiyadii ugu dambeysay, saddexdii madaxweyne ugu dambeeyey oo hadda kan ugu dambeeyey farmaajo ah. Kolley mid walba wax buu soo qabtay, mid walba wixii uu markaas soo qabtay hal la miisaamo. Kolley hadda saddexdaasi saan rajaynaya way wada sharaxan yihiin. Waa Sheekh Shariif, waa Xasan Sheekh, waa madaxweyne farmaajo. Saddexdooda waxaan leeyahay dadkaasi baarlamaanka wax dooran doono intay qiimeen sameeyaan, ay qiimeen weyn ay sameeyaan, qof walba shaqsi u fikiro asoo u turaya waddankaasi uusan dan gaar ah ka lahayn ama jeebka lagu buuxiyo uusan ka lahayn. War adoo jeebkaaga ka buuxsatid haddana waxaa sameyn kartaa qofka maslaxada dadkaasi shacab weynaha Soomaaliyeed dan u ah ayaa noo keeni kartaan. Golahaas baarlamaankan la hadlayaa weli lama soo dooran, laakiin way imaan doonaan insha Allah tabaaraka wa tacaala. Sida kol hore ay sameeyeen geesinimada dadkii baarlamaankii sagaalaad baarlamaankii tobnaad sida uu sameeyey oo kale hadday hadda sameeyaan oo kale, aad iyo aad waxaan isleeyahay shacabka waa loo turi doonaa baan isleeyahay. Marka shacabkaasi oo baarlamaankana matala ah hadday iyagaasi kolley ay ku imaadaan dad oo aqoon-yahano oo ay soo doortaan dadkooda, wallaahi waxaan isleeyahay waxbay qaban doonaan oo madaxweyne fiican bay noo doori doonaan baan leeyahay insha Allah tabaaraka wa tacaala. Kolley wax ay ka qarsoon yihiin ama wax ka qarsoon ma lahan siyaasadda. Dabcan waa u dhuun daleelaan oo mar walbay la socdaan saan rajaynayo. Marka insha Allah tawfiiqdana way ku jirtaa meesha, inuu Ilaahay tawfiiqda waafajiyaan rajaynaynaa. Marka dardaaranka ugu dambeeya wuxuu yahay in ay ummadda u turaan mar walba. Ummaddan Soomaaliyeed way daashay, rafaad, gaajo, dagaal, dhibaato, wax walbay soo arkeen. Marka waxaan leeyahay ha loo turo, ha loo turo, ha loo turo, ummadda ha loo turo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.